الله naxariistay waxaa maanta magaalada Jowhar lagu aasay taliyihii qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe marxuum Khaliif Cabdulla Carfay oo xalay bam gacmeed lagu weeraray hoyga uu ka degan yahay magaalada dhaawac ka soo gaaray markii dambe uu geeriyooday marxuum Khaliif iyo mid ka mid ah ilaaladiisa ayaa geeriyooday halka laba askari oo kale dhaawacyadooda lagu dabiibayo isbitaalka magaalada Jowhar aaska marxuum Khaliif ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya saraakiisha booliska militariga iyo nabad sugidda saakay halkan waxaan u umid inaan arinta ka tacsiyeyno inaan saaxiibkeen meesha uu ka baxay iyo qaabka ku baxayna inaan ogaano ciidanka yimid oo booliska saakay CID ayaa ku jirta ashada qaraxdanimo ku shaqada la ayaa ku jira group kale oo jetro dhaho ayaa socda dhamaan hawl ku saabsan meeshaas ay ahayd wax weyn ay ugu fadhiday laakiin haddana waqtiga Ilaahay ayaan la dhaafi karin marka waxaan leenahay Ilaahay naxariistina Allah ka waraabiyo qoyskii iyo ehelada uu ka baxay Ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo dhamaanteen oo dhan asagana naxariisina Allah siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aaska kadib ayaa waxaa ka tacsiyay geerida marxuumka gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow Khaliif wuxuu ahaa sargaal qiimo badan cadaalad badan wanaag badan akademikaatiya oo wanaagsan oo ahaa booliskii Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday iyo ahaladii dhamaan ubadkii aska tageen sabar iyo iimaan Allah ka siiyo waxaan ugu tacsiinaa walaalkeen ama walaalahan halkan ku dhintay labadoodaba ayaan ehelkooda iyo dhammaan reer Hirshabeelle u tacsiinaa insha Allah ta'ala waxaan leenahay qof kasta waa dhimanayaa soo sheekha sheegay ajishiisan ma dhaafi doona cidii hadda gacantaas geysatay waxaan leenahay kullaba waa idaa ku cadaab mudanaysa madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ugu horreyn uga tacsiyay ehelada marxuumka iyo guud ahaan ciidamada booliska geerida ku timid marxuum Khaliif guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa ummadda Hirshabeelle mas'uuliyiintaas ka baxday waqtigoodii dhamaaday Ilaahay u naxariistaan leenahay waxaan si gaar ah iyagana ugu tacsiyeynaynaa ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan booliska ahalkii iyo qaraabadii oo ka dhintana Ilaahay samir ka siiyaan leenahay sidoo kale Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ciidamada faray in amniga Jowhar ay sugaan xilli falal amni darro ah ay ka dhaceen habeenadii la soo dhaafay waxaan rabaa ciidamada qalabka sido inaan u maaragtay afar amar degdeg ah in la soo qabto dadkii ka dambeeyay dhibaatadan laguma aqaanin deegaankan in qof iska disho ay haddana iyadoo iska baxdeen waa arrin lagu cusub arrintaas waxaa la rabaa si degdeg in looga jawaabo sharciga la hor keeno ummadda Hirshabeelle ku noolna waxaan leenahay nabadgelyada lagu dadaalo deegaanku ma aha jirin deegaan fawda ummaddu nabadgelyo ku noolaa jirta waxaa la rabaa nabadgelyada laga wada qayb qaato Ismaaciil Cabdulla Sidmiye Commercial TV Jowhar